بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وحرب وحير إنا وحكينا هذا إثيوبيا وصوماليا كسوقاتي weerar qayaxan oo dhanka badda ah ay rabto inay badda Soomaaliya ay qabsato runtii waxa aad dhiirigelin u mudan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed wacigooda iyo fikirkooda u sareeyay ay u muujiyeen caro ayna ugu dareen goodin hadii ay Itoobiya isku soo daydo badda Soomaaliya taaka kamida inay qabsato ama ay soo farageliso inay gacan bira ku qaban doonaan dawladda Soomaaliyana ay muujisay sheeg shacabka Soomaaliya inay matasho oo ay caro ay ka muujisay sidoo kale Itoobiya ay u goodisay taas waa qodobka aan rabo waxay tahay waa Colonel Muuse Biixi Cabdi Allah habto waraagii weynaa ee Soomaaliyeed ee filasuufka ahaa Cabdilqaadir Aromo buugisa hadimadii gumaysiga hadal cajiib ah uu ku leeyahay ayaa jira wuxuu leeyahay wasiir gaashaandhigyadii Soomaaliya soo maray saddex kamida ayagoo wata ciidamada Itoobiya ayay dalka ku soo hogaamiyeen waa ninka la yiraahdo Masalle iyo Aadan Gabyo iyo ninka la yiraahdo Maxamed Morgan saddexduba wasiir gaashaandhig ayay soo mareen Soomaaliya ayagoo wata Itoobiyana ayay soo galeen ayuu yiri qoraagu asagoo halkaas tacliiqinaya ayaa wuxuu yiri anigoo taas cuskanaya waxaan cadeynayaa buu leeyahay markii horeba ciidamada Soomaaliyeed saraakiisha Soomaaliyeed 10% inay ahaayeen buu leeyahay jaasuusiin Itoobiyana hatta u laabto Muuse Biixi Cabdi wuxuu kamid ahaa ciidamadii saraakiisha Soomaaliyeed ee militariga Soomaaliya ilaa Colonel inuu gaaray ayaan filayaa marka la fiiriyo dambigan iyo jariimadan inta leeg uu Soomaaliya ka galay hadalka waxa is leedahay hadalka Cabdilqaadir Aromo ayaa wax badan sax ka yihiin waxaan rabaa shacabka ku nool magaalooyinka kala ah Hargeysa Boorama Berbera iyo Burca inay iyagu muujiyaan carada tusaale ahaan aan ilsiyo hadii shacabkaasi ay qabaan hatta hadii Soomaaliya inay ka go'an ay qabaan waxa waajib ku ah inay dalkooda difaacdaan ay qofka ay doorteen ay yiraahdaan warniyaha badeeni ayaad fasaxaysaa badan hadii aad leedihiin anagoo Soomaaliland ayaa go'ayna okay bari Soomaaliya marka ka go'daan oo badeenina hadda la qaato konton sano la saxay Itoobiya iska qaato ciidan keensado yaa hadhow markii aad dal noqotaan hatta idii ka dhicinaya Itoobiya marka hatta hada ku fakaraysan Soomaaliya inay ka go'daan Hargeysa iyo Boorama iyo Burca iyo Berbera Afrikaas magaalatiina caradina muujiya Muuse Biixi la xisaabtama ka dejiye xilka badina difaacda hadii aad Soomaaliya ka go'aysan anaga walaalo ah marka aynu isugu imaano raasta wada hadalka oo aynu ka wada hadalno waxa tabanaysaan laakiinse dhulkiina dad kale ha iska siinina dhulka Soomaaliya hadda idinka kaliya ma lihdin kun sano oo dambe dadka dhalan doona ayuu wuxuu yahay dhaxal badda Soomaaliya ayay dhaxal u tahay marka waxaan idin sheegaynaa in wacyigeenu ka sara maro hadda waxa tabanaysaan kaliya inaad nabarka bugta aad eegtaan laakiin idin ka fakirin mustaqbalkiina dambe aad u maasantihiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh